Somaliland Teachers Association. Solta. iyadoo guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliland laga xusayo maalinta madaxbannaanida ay la soo laabatay jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May ayaa guud ahaan gobolka Awdal laga dareemayaa dabaaldega 18 May waxaana xakaasi munaasabadaasi si meeqaam sare leh uga qayb qaatay ururka macallimiinta Soomaaliland ee Solta iyagoona muujinaya dareenka meeqaamka sare leh oo hayaan xuska maalinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa kaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka macallimiinta gobolka Awdal Aadan Cumar Maxamuud gudoomiyaha ku-xigeenka ururka macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiha Faarax Nuur agaasimaha ururka macallimiinta gobolka Awdal Kamal Faysal Maxamuud Rahmaan Rahiim halkan waxaan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kaloo salaamayaa madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Saylici waxaan leeyahay aad iyo aad baan hambalyeyn igu soo diraynaa annagoo ah macallimiintii qaranka gaar ahaan macallimiinta gobolka Awdal waxaan ku ciidnay xuskan nabad iyo barwaaqo waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa macallimiinta gobolka Awdal oo si ballaaran mugiyo miisaan looga soo qayb galay kaasoo aan hogaaminayo anoo gudoomiyaha ururka Solta annagoo ka wakiila ururka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Solta gaar ahaan gobolka Awdal waxaan leeyahay macallimiinta jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka qayb gashay gaar ahaan gobolka Awdal aad baad u mahadsantihiin Rahmaan Rahiim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam tasliiman kaseera hambalyo maanta runtii waa maalin weyn waa maalin aan u dabaaldegayno sanad guurada ka soo wareegtay sanad guuradii 11aad ee ka soo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay jamhuuriyadda madaxa bannaan ee Soomaaliland runtii waxaan leeyahay shacab weynaha dhammaan Soomaaliland ku nool hambalyo gaar ahaan waxaan si gaar ah halkan hambalyo ugu dirayaa oo la qaybsanaya farxadda sanad guuradan macallimiinta Soomaaliland anigoo ku hadlaya afka ururka magaca Solta Somaliland Teachers Association hambalyo oo maasanta bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed waa maalintii qaranka waa maalintii macallimiinta waa maalintii bahda waxbarashada farxad weyn bay noo tahay inaanu ka qayb qaadano maalinta qiimaha leh annagoo ah ururkii macallimiinta Soomaaliland gaar ahaan qaybta gobolka Awdal waxaanu la wadaagaynaa guud ahaan shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland farxadda maalinta weyn ee 18 May waxaan leenahay insha Allah shacabweynaha اعترافku waa dhow yahay insha Allah isku duubni wada jir iyo wada shaqayn ayaan wax u gaari doonaa insha Allah macallimiintu waxay direeynayaan meel kasta oo joogtaan farxad guul sanadkaas sanadkiisa lagu gaaro barwaaqo mashmash iyo wanaag wad maasantii wassalaamu calaykum warahmatullahi